Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka caalamka oo aad si toos ah kala socotaan shacabka media xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Waxaana warka idiin sheegaya anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo qayladhaan ka keentay shuruudo adag oo lagu xiray inay daabacato lacag cusub. dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hortimid musharaxnimada uu ku dhawaaqay Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaaciyay cidda wadata musharax Roobo ee ka dambeysa inuu xilkaasi isku soo taago. dhaqdhaqaaq ka dhan ah boqortooyada Sacuudi Carabiya oo lagu dhawaaqay. marwada koowaad ee madaxweynaha dalka Mareykanka oo booqasho rasmi ah kusoo gaartay dalkani Kenya. Soomaali lagu dilay dalka Koonfur Afrika iyo faahfaahin kala duwan oo soo baxaya. waxaan idiin soo gudbin doonaa su'aasheena maanta anagoona dib u eegi doonaa su'aashii shalay aan idiin soo gudbinay iyo daawadayaasha fikradahooda saliimka ah ka soo dhiibtay. waa maalinimo Jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha 10aad 2018. warkii oo dhameystiran. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa gabi ahaanba ay ka soo horjeesatay musharaxnimada Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo isku soo sharaxay xilka madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si cad uga hortimid musharaxnimada Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo shalay isku soo taagay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo loogu tartamayo bisha November ee soo socota doorasho ka dhici doonta maamulkaasi. wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed lagu cadeeyay in Mukhtaar Roobo aanu ka qayb gali karin doorashada maamulka Koonfur Galbeed iyadoo weli ay saaran tahay cunaqabateyn caalami ah oo beesha caalamka hore ay ugu soo rogtay. wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka iyadoo ka duuleysa xilka iyo waajibaadka dastuurka ku meel gaarka ah u idmaday gaar ahaan la socodka xaaladaha amni ee wadanka iyo dabagalka heshiisyadii horey loola galay hay-adaha caalamka kuna saleysan iskaashiga iyo wada shaqeynta amniga guud ee dalka dariska iyo caalamkaba. haddaba wasaaradda amniga gudaha iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda kana fulinaysa go'aankii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya cafiska ugu fidiyay dhammaan horjoogayaasha iyo xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee ku sugan wadanka gudihiisa waxay dadaal dheer u gashay sidii looga miri dhalin lahaa cafiska madaxweynaha uu ku dhawaaqay. tallaabooyinka ay wasaaradda qaaday ayaa waxaa ka mid ah heshiiskii ay la gashay bulshada caalamka ee lagu hakiyay xayiraadii saarneed Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. hase ahaatee ay shuruudo ku xirnaayeen in dhammaan laga wada qaado cunaqabateyntii saarneed sida xayiraadda dhaqdhaqaaqa, xayiraadda booliska caalamka iyo xayiraadda dhinaca dhaqaalaha. sidaa darteed wasaaradda amnigu iyadoo tix raacaysa heshiisyada ay la gashay beesha caalamka ee la dagaalanka argagixisada tixgelinaysana xuquuqda muwaadinku uu leeyahay inuu xil u soo istaago waxay cadeynaysaa in aanu Mukhtaar Roobo Abu Mansuur buuxin fulinta shuruudihii laga qaadayay dhammaan cunaqabateynta aan soo sheegnay welina ay saaran yihiin cunaqabateyntii dowladaha caalamka ay saareen. taasina ay ka reebayso tartanka doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. ugu dambeyn wasaaradda amniga dowladda federaalka waxay ku wargelinaysaa wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dhammaan asbaabaha aan kor ku xusnay ee ku saabsan doorashooyinka soo socda ee maamulkaasi ka qabsoomi doona. hadalkan ayaa waxaa weji gabax uu ku yahay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab mas'uuliyiinta ugu sarsareysa hase ahaatee dhowaan isku soo dhiibay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoona shalay magaalada Baydhabo uu socdaal ku gaaray waxaana uu ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed oo bisha November ay ka dhici doonto doorasho aad u adag loolankeeda. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu shaaciyay cidda wadata musharax Roobo oo shalay ku dhawaaqay inuu musharax u yahay xilka madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay wadato kana dambeyso musharaxnimada Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo shalay isku soo taagay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu tartamayo bisha November ee soo socota. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur su'aal kaga keenay sababta warbaahinta qaranka ay u tabisay musharaxnimada Roobo isla markaana aysan u tabin
xisbiga Xasan Sheikh uu shalay Muqdisho si rasmi ah uga daafuray. TV-ga qaranka Soomaaliya wuxuu baahinayaa warbixinta Mukhtaar Robow. TV-ga qaranka marnaba ma baahin muuqaal ku saabsan xisbiyada dalka ka jira, gaar ahaan xisbiga Wadajir. Tani waxay caddeyn u tahay in ololaha doorashada Mukhtaar Robow laga soo abaabulay madaxtooyada iyo hay'adda NISA, ayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku yiri qoraal kooban uu soo dhigay boggiisa Facebook. Si kastaba, hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa u muuqda mid aan sax ahayn kadib markii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xalay si cad uga hortimid musharaxnimada Mukhtaar Robow Abu Mansuur, waxaana dowladda ay sheegtay in Mukhtaar Robow xilligan uusan awood u lahayn in uu soo istaago xilkaasi maadaama ay saaran yihiin cunaqabateeno caalami ah oo ay horay ugu soo rogeen beesha caalamka. Wasaaradda Amniga Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed lagu cadeeyay in Mukhtaar Robow marnaba uusan doorashada ka soo muuqan karin. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qayladaan waxa ay ka muujisay shuruudo adag oo lagu xiray inay daabacato lacag cusub, iyadoo dhowaan ay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday in la soo daabacayo lacag cusub. Ayaa waxaa haddana soo baxaya culeysyo ay ku xireen daabacada lacagta cusub ee shilinka Soomaaliga. Culeyska ka taagan daabacada lacagta cusub ayaa la sheegay inay isugu jirto bixinta lacagaha lagu daabacayo iyo shuruudo kale oo dhowr ah. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in markii hore dowladda lagu xiray shuruudo badan oo ku saabsan soo daabacista lacagtan cusub, taasi oo keentay in dowladda xilligan ay caqabad wajahdo. Cabdiraxmaan Beyle ayaa qiray dhammaanba shuruudihii lagu xiray dowladda Soomaaliya inay ka soo gudubtay, balse ay harsan yihiin kuwo kale oo ku xayiran soo daabicista lacagta cusub ee la doonayo in laga dhaqangeliyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la kulmaysa caqabado dhowr ah kuwa oo xalintooda ay tahay mid ku xiran bixinta lacago shuruud ah. Dowladda ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii loo heli lahaa lacag cusub oo shilinka Soomaaliga bedesha, taas oo haddii la daabaco wax badan ka bedeli karta dhaqaalaha guud ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale, wasiir Beyle ayaa meesha ka saaray in dowladda Soomaaliya ay ka gaabin doonto wax ka qabashada culeysyada la soo darsay, waxaana uu ballan qaaday in xal ay u heli doonaan culeyska ka haysta dhinaca daabacada lacagta. Hadalka Beyle ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday soo daabacida lacago cusub oo ay Soomaaliya yeelato. Melania Trump, oo ah marwada koowaad ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, ayaa waxaa booqasho rasmi ah ay ku soo gaartay dalkani Kenya. Marwada koowaad ee wadanka Mareykanka, Melania Trump, ayaa waxa ay dalka Kenya ku soo gaartay booqashadii ay ku mareysay afarta dal ee Afrikaanka ah. Booqashadeeda Kenya ayaa la filayaa in ay diiradda ku saari doonto arrimaha la xiriira dhaqanka iyo ilaalinta duurjoogta. Waxaa la xiray qayb ka mid ah eelaboorka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta markii ay soo caga dhiganaysay diyaaraddii siday Melania Trump. Waxa ayna maamulka qorsheynayaan in ay marka ay dalka ka baxayso sidaas la mid ah u xiraan qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta. Inta ay joogto dalka Kenya, waxa ay booqan doontaa xarumaha ugu caansan ee lagu dhaqaaleeyo duurjoogta. Sidoo kalena waxa ay daawan doontaa riwaayad lagu soo bandhigi doono tiyaatarka qaranka ee Kenya. Dhanka kale, Melania Trump ayaa markii labaad la kulmi doonta dhigeeda marwada koowaad ee dalkani Kenya, waxaana ay Margaret Kenyatta ku ammaantay ololaheeda ay ugu magacdartay Beyond Zero, ka oo lagu horumarinayo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Marwada u dhaxda Donald Trump ayaa iyana la imaanaysa ololaheeda loogu magacdaray Be Best, kaas oo lagu doonayo in lagu horumariyo nolosha carruurta. Ilaa iyo haatan qaaradda Afrika, marwadan si weyn ayaa looga soo dhaweeyay, inkastoo hogaamiyaasha Afrikaanka ay weli xusuustaan erey aan wanaagsaneyn oo uu horay bishii Janaayo ee sanadkan ugu adeegsaday qaaradda Afrika Donald Trump. Muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa in xalay lagu dilay dalka Koonfur Afrika. Wararka naga soo gaaraya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in xalay burcad Koonfur Afrikaana ay toogasho ku dileen laba muwaadin Soomaaliyeed oo waqtiga ku sugnaa goobtooda ganacsi. Gaar ahaan dilkan labada dhalinyarada ah ayaa ka dhacay magaalada Pretoria, sida uu shacabka media u sheegay mid ka mid ah dadka halkaasi ku sugan, waxaana uu sheegay in uu goobtaasi ka dhawaa
waxaa labada dhalinyarada ah ee la dilay lagu kala magacaabi jiray Cabdifataax Gurey iyo Muumin Xuseen. Isla goobtan ganacsi ee lagu dilay labada dhalinyarada ah ayaa laba habeen ka hor waxa ay koox burcad Koonfur Afrikaan ah dhaawac daran ugu geysatay dhalinyaro Soomaaliyeed. Koonfur Afrika waxaa caadi ka ah dilalka iyo boobka lagula kaco ganacsatada Soomaalida ah ee dalkaasi ku dhaqan. Ilaa haddana ma jirto tallaabo ay dowladda ka qaadatay dadka fulinaya howlgalladan lagu baabi'inayo dadka ajaanibta ah oo ay Soomaalida ugu horeyso. Dad badan ayaa waxa ay qabaan shaki ku aadan in dowladda Koonfur Afrika ay iyadu sabab u tahay in dhibaatooyinka loo geysto bulshada Soomaaliyeed maadaama ay ka gaabisay in ammaankooda ay xaqiijiso. ugu dambeyntiina dowladda Sacuudi Carabiya waxa ay wajahaysaa dhaqdhaqaaq cusub oo ka dhan ah kaasi oo si rasmi ah loogu dhawaaqay. Aqoonyahan iyo qoraa Sacuudiyaan ah oo si aad ah u dhaliila dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay dhismaha dhaqdhaqaaq mucaarad ah oo ka shaqeyn doona dalkaasi dibadiisa, sida uu qoray mid ka mid ah website-yada wax ku qora arrimaha khaliijka ee lagu magacaabo Arabiya 21. Marzuq Mashan Al-Otaibi ayaa dhaqdhaqaaqa isku keenida qaranka kaga dhawaaqay gurigiisa oo ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska, waxaana durbaba uu soo jiitay taageerayaal badan oo aan ku qanacsanayn nidaamka ay wax ku maamulayso dowladda Sacuudiga. Al-Otaiba waa qoraagii hore ee wargeysyada dalka Sacuudiga ee kala ah Maka iyo Al-Shaq, wuxuuna sidoo kale macallin ka ahaa qaybta chemistry-ga ee jaamacadda King Saud University. Maamulka Al Saud waa uu idin bahdilayaa, waa idin adoonsanayaa, waana idin ciqaabaya. Isaga oo ka hadlayay dhaxal suge Maxamed bin Salmaan ayuu yiri wuxuu iska indhatirayaa dhammaan dhaqamadii Carabta iyo Islaamka, wuxuu xirayaa haweenka, dadka da'da ah iyo caruurta, xitaa dadka qaar wuxuu jir dilay ilaa ay ka nafbaxaan. dhaqdhaqaaqan cusub ayaan la ogeyn sida uu u saameyn karo siyaasadda guud ee boqortooyada Sacuudi Carabiya, inkastoo ay muuqato in taageerayaal aad u badan ay durbadiiba heleen kooxdan isku magacaabday inay doonayaan in qaranka ay isku keenaan. Markana su'aasheena maanta inta aan u gudagalin haddii aan eegno su'aashii shalay aan idin soo gudbinay iyo weliba dhanka iyo daawadayaasha fikradooda saliimka ah kasoo dhiibtay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك ميديا ومهدسنتين سيدا أدوارك نوسو قدبينيسان وانكم مهدسنتين waxaan ka leeyahay maamul goboleedyada ayaga dib lagu qabaa, ayagu dib ma qabaan. dalkii intiisi kale intay ayagu haystaan oo ciidan iyo calaf bay ayagu haystaan, yay maxay ahayd dawladii xamar kaliya ka talinaysay yay haystaan. wax alla wixii irsaaqad ahayd iyo wuxuu dalku dad iyo dunya laha iyaga haysto. dawladii bayna maxay ahayd eedaynayaan. iimaanka Allah ku sugo, iimaanka Allah ku sugo hooyo iimaanka Allah ku sugo. nimankaas meel kale noo wadaan, meeshay noo wadaan Allah naga qabto, Allah naga qabto. nimankaasaan leeyahay dadweynaha ay hor taagan yihiin ha ka istaageeno, ha diideeno dadweynaha u hogan hayo iridka ka taagan yihiin ay afduubeen, ha diideeno oo ha ka hor imaadeeno oo hana dhaaf ha dhaheeno. nimankaas aad bay dadka u dhibeen, meel bay ku go'doonsadeen. maxay ahayd dawladii ayaga maxay ahayd u shaqeynayso dadweynaha u shaqeynaysay ay ka hor taagan yihiin inay dawladdu soo gaarto gobolada oo maxay ahayd wax ka qabato. nimankaas waa jeebabkooda un bay dhowranayaan moogay, asxaan ay noo hayaan male hooyo. halkaas dadkii bay ku hor joogsadeen, ummadda inay isu socotay diideen. waxa ciidankii calafkiiba maxay ahayd meesha ku hortaagan oo in dawlad goboleedyadu gobolka laga shaqeeyo oo gobolka dariiqyadiisa furmaan. waxa diidanna waa tuugta hor fadhido. maanta waan caayahayaa, afkayga wax badan baan foolxumada ka ilaaliyay, maanta xanaaq baan kula dhacayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام يا شغالها تيفيقا إيو هالوضينا دبا وعنقالوا السلام يا بوكر هاجي. وعن ربا إنان سؤاشي جوابك جيزدو أخيد
xalka maamul goboleedada Soomaaliya madaxda maamul goboleedada magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed Cali waxaan joogaa wadanka Indonesia haddaan su-aasha iskortaago madaxda maamul goboleedadu horta waa qeyb ka mida nabadiidka Soomaaliya qeyb ka mida wey waana caddahay maxaa yeelay inay ka mid yihiin nabadiidka Soomaaliya waxaa caddayn iyo markhaati u ah sinataradii aqalka sare ee ay isku gobolka ahaayeen waad maqlaysay inay kasoo horjeesteen markaa waxay ku sifoobeen niman ka mida kooxaha nabadiidka ah ee Soomaaliya ka howlgala sidaa awgeed halkoodu waxa weeye go-aanka laga qaato kooxaha nabadiidka ah mid lamida in laga qaato maalin walba waxaynu maqalaa xarumo iyo fadhiisimo iyo saldhigyo maxaanku irahday kooxahaasi leeyihiin baa dayuurada garaaceen waxba kama duwana kuwanina madaxtooye ku-sheegyada ay joogaan waxay u baahan yihiin kuwa waxa garaacaya inay garaacaan maadaama ay ku sifoobeen nabadiidka Soomaaliya qeyb ka mida waxaan anigu oran lahaa ururada caalamiga iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa xuquuqul insaanka iyo indhayaasha caalamigu waa in lagu daraa liiska madow waa in lagu daraa nimanka hogaamiyeyaasha gobolada waa in liiska madow lagu daraa anigu taladayda iyo xalkaygu waa ka waxa weeyaan ninkuna horta inuu hogaamiye noqdo waxaa ka horeeya inuu hadal siyaasadeed yeesho inuu hadal siyaasi leeyahay baa ka horeeya inuu hogaamiye siyaasadeed noqdo warma niman kale masiir siyaasadeed doonaya ee warbaahinta kaga hadlaya wiil baydhabo ka imaaday ama diinsoor iyo buurxakamo iyo maxaanku rahday ka yimi buurxakamo iyo diinsoor iyo waajid ka yimi oo dacas qaba haddii noogu talin maayo dalka iyaga nin kale sidee isagu ugu talinayaa halkaa jooga waxyaabaha la yaab kale wey asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan salaan uga dirahayaa tv-ga shacabka meediya maslax xaaji wariyaha sharafka leh bacdi salaan waxaan su-aasha maanta taagan waxay tahay sideebaa dowlad goboleedyada iyo dowladda see loo dhexdhexaadin karaa seese laysugu keeni karaa maadaama ay dowlad goboleedyadu ay sheeganayaan dhibaato weyn oo faragelin ah marka hore waxayna fahmin dowlad goboleedyadu ma dowladda dad ka tirsan baa iyagu mise waa dowlado daris ah
dowladda Kenya, tan Ethiopia, tan Eritrea, tan Djibouti, dowlado daris ah jiro Soomaaliya, dowlado daris la ah ma dowladaha dariska ah mise waa hay'ado ka tirsan dowladda oo hoos imaada. haddii ay yihiin dowladda hay'ad hoos imaato oo dowladdu dowlad u tahay, hadday tahayna dee dhulka ha dhigeen, usha dhulka ha dhigeen ay sitaan. hadday yihiin dowlado ka tirsan oo dowlado kale oo daris ah hadday yihiinna hata ha cadaysteen. annagu waxaan u naqaanaa dowlad gobollo baan u naqaanaa, gubernatorayaal baan u naqaanaa. gubernatorayaal inay ahaadaan weeye. haddii alla kuusama ogol yahay, ninkii hadda waare waa ka noqday, xeefna waaba burburiyey galmudug, wuxuu gacan ku hayaa maba jiraanba. waa shiray golihii wasiiradaa shiray, hebel bay casileen, mid kalena hebel bay casileen, cadaadaa lagu shiray waa la casilay, dhuusamareeb baa lagu shiray waa la casilay. waa meel ciyaar ciyaar ah. isagana wuxuu gacanta ku haya malahan, galmudugna wuu burburiyey. ninka la yiraahdo waarena waaba ka noqday. shariif xasan, maxaa la dhahaa, shariif xasan asagana hadda dee war uma yaalo, doorashaa ku socota. waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuusan dib ugu soo noqonin. wixii uu ka aruursan karay, wuxuu ka qaadan karay ka qaadaya, uu meelihiisaas la aado. ninka la yiraahdo axmed madoobe waa ninka dhibkoo dhanba ninka abuuray, ninka dhibkoo dhanba ninka madaxda u ah weeye. asagana waxaan rajaynayaa shacabkii, asaga meesha uu leeyahay madaxweynankaha, shacabkii ayaan rabin kuna kacay. la-ana dowladda daris la-a mu ahane, waa gubernatoore oo dowladda gobol ka mid ah jooga. marka waxaan leeyahay dowlad goboleedyadow sida isu dhaamo isqabsada. dowladda wax eedahoon u haya malahan, shadaadiin iskaashatay baan u hayaa. asalaamu calaykum waraxmatulla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي السلام سلطان تيفي وولاشينا مسلمة أو سيدينا إلا سو حريرتي waxaan rabay inaan ka hadlo maamul goboleedyada iyo dowladda ay ku saabsan yihiin toobigayga maanta. waxaan aan dhihi lahaa maamul goboleedyada dhahaya dowladana soo faragelisay. horta marka ugu horeysa dowladdu waa tii idin samaysay, waa tii adika idin maamuday, waa tii wax idinka dhigtay, waa tii macnaha qiimo idin yeeshay annaan lahayn, waa tii dad idinka dhigtay adikoo aboorka ardiyada cuna oo xarkaha cuna ayaad ahaydeen. adikana ayadaan shaqaale u tihiin, dowladda ayadaad shaqaale u tihiin, waana soo faragelisay. markaad leedihiin ma waxaad tihiin dowlad la siman dalkii Soomaaliya. asagaa dowladdanayta tii ka horeysa ahaataya iyo midaan ahaatayaba asagaa ku amaamuday. dowladda muqdisho ayaa ku amaamuday, adiga waxba maadan ahaynba markaa ka hor, wax duurkaa ku jiraad ahaydeen. taaniyan midda kaleon idin weydiinaya waxay tahay, shacabkow, dadkan fajiistayaalka oo dhiigyacabka oo maxaan ku leeyahay dhuuntoodu waxaan lacagayn aysan maraynin, oon masaakiinta ogeyn, oon kan jilicsan ogeyn, oo kan buka ogeyn, oo maxaan ku leeyahay shacabkiisa waxba aan ka ogeyn, oo wuxuu dowladdu usoo dhiibtaba asagu liqaya. wixii uu yiraa maxaan ku leeyahay war waxaas wada ku dhis, ama maxaan ku dhakhtar ku dhis, ama intaas ugu qaba dadka, ama dhibaatadan maaragtay dadka uga saar la yiraa, asagu intuu liqo haddana soo taagan oo dacwo iyo dacaayad meeshan la soo taagan. war miyaynaan adigu fahmaynin? miyaynaan dad damiir lahayn? miyaadna iska kici karin? iska kiciya. fajiista waxba ha u dhiibanina, mid dhigyacab waxba ha u dhiibanina. dhalinyarada yaryar oo maxaan dalka wax kusoo baratay, oon dhinacna uga bixin, oo maxaan ku leeyahay aqoonyahanka oo halkaa baagamuudada ku ah, u dhiibta, iska bixiya waxaan baktiga ah ee dhuunka baabuurka ah, dhuun baabuuryaalka oo dhuuntooda waxaan baabuurka ahayn aan maraynin iska saara. bangigooda ma buuxsamo. mid baa idin sheegayaaye, lacagta dowladdu siiso bangigay ku shubtaan. dowladdu markay tiri aaway waxaad qabateenna, waxay la soo jeestaan dood iyo dacwad iyo wayna soo faragelisay.
markii la weydiiyo aaway halkeed kayseen wixii ummadda laydinkugu dhiibay sanad walba intaasoo lacag ay shubtaa bil walba intaasoo lacag ay shubtaa 6 bilood oo walba waxay shubtaa intaasoo lacaga si loogu qabto degmooyinkaasi ay dadka jooga wax loogu qabto war ma aragteen wax la idin qabtay iska kiciya maamul goboleedyada wax ay idin hayaan iyo waxay idin sameynayaan midna ma jirto waxaad ka istifiideysaan male maanta haday isku dhacdo waxa weeye diyaarad bay qaadanayaan mid walba caruurtiisa meel bay ugu xafidsan tahay meel bay wuxuu baranaysaa wax baaba'ay waadika qaska iyo dilka iyo dhaca iyo rafaadka iyo afduubka waxa muqdisho ka hayaan waa ayaga si ay u qalqaliyaan dawladda lugaha uga qabtaan si ay maaragta u dhibaateeyaan si ay maaragta ay sheeg maxaa la yiraahdaa caalamka ay dhahan ma jeedin wax nabadaha ka jira ma jiraan ee dawladda lagu maaragta ay deeqyada la siinayo laga ceshto sidaas ay ka shaqeynayaan maanta haday isku dhacdana qofka dhimana huwa shacabka dadka baaba waa shacabka dadka rafaada waa shacabka dibku wuxuu imaana waa shacabka waxa qaxaayo oo maaragtay wadooyinka ku dhimana waa shacabka shacabku marka waxaan idin dhihi lahay dadkaanay oo adika aad ka dhigateen Jubbaland ka bilaw maxaa Puntland ka bilaw ku xiji maxaa Somaliland ku xiji ma gobolada dhexe ku xiji maxaa Indagluus meesha u taliyo oo maxaa waqooyi galbeeda oo maxaa dadka raxweynta ku xiji maxaan ku leeyahay hiiraan ku xiji iska kiciya dadka aan idinka naxaynin oo masiibada ah oo fajiistaha ah oo waxba ka naxaynin ilaa inay bangiyadooda adduunka buuxsadaan waxay rabaan jiilka jiil yacni 1000 sano oo hadda ka bacdi jaalkooda waxay cunaan ay meel u dhigayaan oo dawladdaanay macnaha ay ka maroojinayaan waad fahanteen bangigooda ma buuxsaman saan hore idinku sheegay iska kiciya ayagana waxaan dhihi lahay ayaga meesha waa leedin dhiibtay waxa tiin ayadoon lahayn oo waxba aadna ahayn ayaa leedin dhiibay dawladda midii hore ama tan ha ahaatay ayada idin amaamuday ayada meesha idin dhiibatay calaykum inaad ayada la shaqeydaan ayada in la shaqeydaan weeyaan maahan in aad dhahdin dawladdiiba na soo faragelisay oo ma dawlad kala tihiin ayada u shaqeynaysay ayada waxa meesha ku keensatay ayadaaba ku tiri war meel ka soo muuqo dadkaaga san wax kuugu dhiibo bal nin keensada yiraahdeen dadka meelaha degan ninkay keensaday ma dhuun baabuur buu noqday marka waxaan idin dhihi lahaa shacabkaygu waxaan idin dhihi lahaa iska kiciya dhuun baabuuryaalka waxaad u dhiibateen dhalinyaro u dhiibta xukuumadiina ka soo bilaabata maxaan ku leeyahay Jubbaland maxaan ku leeyahay waqooyi galbeed maxaan ku leeyahay Puntland maxaan ku leeyahay Somaliland gobolada dhexe iyo hiiraan waxaan idin dhihi lahaa oon taladayda haddaad doonaysiin walaalayaal qof ma aragtay in badan wax soo aragtay baan ahay mid dhaamana ma jire midkaan dhaama haddaad tiraa waa uunkiiye wadada isla wadadeeba qaadayaan iska kiciya dhalinyaradiina u dhiibta wadanka aan ka bixin ee wax baratay ee meelaha ku bilaa macnaha xaabada guraya oon waxba aan haynin waa fahanteen waa haddaad doonaysiin inaad toostiin oo wadan barwaaqa aad heshiin oo dadka adduunka la tartartiin weeye oo nabad iyo baraare iyo barwaaqo heshiin iyo caano dawladdan u soo jeestay dawladda waxaan dhihi lahaa meelaha ha ka hadlinina mid walba intuu TV soo istaago siyaasiga xanaaqsan waa lagaaga roon yahay farmaajo inkastoo farkaligeeda toodan fool dhaqaynidooda Soomaaliya oo dhan wada qancin karin haddana siyaasi xanaaqsan hadhiina waxaad tiraahdaa war idan aawaye war aan dalka dhisano war kaalaya war siday dadku adduunku ku arkaan ilaa hadalka ka hadlaysid adduunyada dhan ayaa maxay fiirsanaysa ama dhageysanaysa waa la fasiraya hadalkaaga Soomaaliga waa dadka dhan ba maxaan ku leeyahay marka maaragtay wada arkaya adduunyada dhan marka af fiican ku had waxa tiraahdaa war kaalan wax aan qabsanay war kaalan dalka dhisanay war waxaan dhibkan aad Muqdisho ku haysiin waa idinka waan idin ognahay inaad idinka tihiin war naga daayo khayrkii wanaaga u soo jeesto oo kaalayan wadanka wada dhisanay maxaan ku leeyahay hebelow farta ku wada fiiq ma fahmaysaa qalbi madoobow iyo indagaluusow iyo caloor dalbaarow iyo dhuun baabuurow iyo dhutiyow kii maxaan ku leeyahay laangaraha hayo waxa sidaas oo u sheeg yacni waxaan ku leeyahay ma istaahilaan magacyadooda waxaan saa u leeyahay magacyadooda ma istaahilaan qof dhahaysa faragelin bay nagu haysa war faragelintu waa maxay iyada ku soo amaamuday dawladdan ayadaadba ka timidba ma fahmaysaa waxaan dhihi lahaa marka dawladayda farmaajo iyo maxaan ku leeyahay khayr waxaan dhihi lahaa siyaasad adeegsada
siyaasad adeegsada dhuun baabuuryaalka waxba ha siinina dadka shacabka ee meeshaas jooga soo jiidasho ku sameeya wax u qabta diba mareeya dadkan ay soo dhuun baabuurkan raba isaga inuu liqo wixii dadka la sii lahaa diba mareeya wax u soo qabta maxaan ku leeyahay hadday Jubbaland tahay hadday maxaan ku leeyahay Soomaali galbeed tahay maxaan ku leeyahay waqooyi galbeed tahay hadday maxaan ku leeyahay tahay Hargeysa hadday tahay maxaan ku leeyahay Boosaaso gobolada dhexe meel walba noqotaba idinku dadka u dimo mareeyo saad yeeshaan iyo si alla yeelaba maxaan ku leeyahay waxaad sameeysiin adika inaad dadkii soo jiidataan hebela yiri iyo hebla tiri farfar ku taag wax kuma dhismayaan waxaa dad ku tihiin iyo sharaf ku leedihiin dalkii Soomaaliya guud ahaan markaan la hadlo shacabka Soomaaliyeed waxaa sharaf ku leedihiin in aad dawladdiina dhisataan haddii aadan maanta aadan adigu aad macnaha aadan macnaha aadan aad yani waxaad xasuusataa wixii aad soo martay 27 sano 28 sano la sii maraya dhulka taala marka inaad dhulka oo laata maaha waa inaad ka kacdaa waa inaad adduunyada la tartamtaa dalkiina iyo dadkiina ogaada waa dawladda يعني سياسة أديكسدا سياسة معناها هو تغاني سماهن أفكار لها هلا ماهن وأف معان إن تكسو جيدة تدك كلمة بعان إن كسو جيدة إن دوحكو درتد أو محن كله روم باوريال كان إن تكلي حاتين ويان وحانيتي مدحوينها لليهاي مدح قشن كانت أنا مدح قشن بابنو بحية مدحوين ماشان مجيغي دالك سومالي هل مدحوينو ليهاي ومد كاسو فرماجا كحقين كيسو محن كله قيرأة iyo maxaan ku leeyahay intii la soo halmaasho ka sii hooseydo oo wanaaga jecel inta wanaaga jecel walaalayaal waxaan idinka codsanayaa in aad dalkiina dhisatiin shacabka u kaca oo dalkiina dhista oo dawladda la shaqeeya oo sharaf yeesha ha noqonina dad lagu sheekaysto oo adduunyada looga sheekaysto please ha iska dhiginina dad adduunyada laga sheekaysto oo la yiraahdo waxa sida Soomaaliya kale yani wixii xunba for example anaga noo soo qabsado dadka dhimanaya waa masaakiin waligiin ma helaysaan ilaa oo ninka kale rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri la yu'minu ahadukum ahadkiina ma aaminin ama diintiiba ma rumaynin hatta yuhibbu kama yuhibbu naftiisu u jecel yahay sida oo walaalkiis macnaha inuu walaalkiis la jeclaado wuxuu asagu naftiisa la jecel yahay inuu markaas la jeclaado naftiisa wuxuu la jecel yahay qasdigaygu waxa waaye in naftiisa wuxuu la jecel yahay walaalkiis la jeclaado fahmaysaa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu nafsihi naftiisa wuxuu la jecel yahay walaalkiis la jeclaado weeye ilaa ataas ka jeclaan isaas ahaanaysin mooyaane ma aana aaminin diintoo yiri marka ay diin baan haysanaa anagu marka diinteen haysanaa qof muslim ah la holcinaya qof muslim ah geedka lagu xiraya qof muslim ah wax la dalaandalaya qof muslim ah maxaan ku leeyahay la caayaya qof muslim ah wax laga sheegaya war maxaan helay wiilkii adoogii habartii islama hadlayaan midka kale oo ka baqanaya oo isleeyahay ama reerkii yahay ama cidi iyada ahayd yahay war waxaan ma muslimiin ugu degtay oo waxaan wanaagsanayn waraan alla u noqono ittaquu rabbakum irji'u ila allah farru ila allah ilaahay ka baqa oo astaghfarta oo ilaahay weydiisa dambi dhaaf ee dalkiina iyo dadkiina u naxariista dawladda la shaqeeya waxa la yiri ninkii ku yiraa maxaan ku leeyahay dad xumo ku yiraa dad laa waa la yiraa maanta dawladdaas aad yeesaysid oo isleedahay maxay qabatay oo wax badan bay qabatay nima wiilal ku huursana xabsiyo intaas oo sano 20 sano oo ku huursana oo qaarkood meesha ku baqtiyeen ku dhimaadeen oo dhaqsigeeda dadxigu ku galay ayay ka soo bixisay wiil 22 sano jiray oo 53 sano jira laga soo saaray xabsi war miyaysan taas adduunyada dhan ay martay markaasay afwan raali hada macnaha midaas ayaan idin dhihi lahaa in aad dadkiina iyo dalkiina u naxariisatiin dawladdiina la shaqaysiin wabarakallahu fiikum igan raali hada dan idinku dheereeyay xaga qeyra ay qaade wiilasha TV waxaan ka codsanayaa in codkayga meel dheer gaarsiiyaan shacabkayga inay gaarsiiyaan
su-aasheena maantana haddii aynu eegno su-aasheena maanta waxa ay tahay waxaa sii kordhaysa tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee marba marka ka dambeysa lagu dilayo gudaha dalka Koonfur Afrika iyadoona dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Afrika xiriirkooda uu yahay mid wanaagsan haddaba sidee ayaa loo joojin karaa dhibaatooyinka lagu hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqaysanaya gudaha dalka Koonfur Afrika iyadoona dhanka kale aan ogsoonahay in waalidiin badan oo caruurtooda halka ay uga shaqaynayeen halkaasi lagu dilay guud ahaanba waxaa intaasi nooga idil warkii caalamka oo aad kala socoteen shacabka media xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi warka waxaa idin sheegayay anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji tani inteenu ku kulmi doono warkan kan xiga waxaan idin ka tageynaa sida iyo nabadgelyo